أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta sida sheekheena uu u sheegay maalin weyn oo maalin farxadeed ah oo 30 maalmood oo ramadaan ah la soo soomay. alxamdulilah ilaahay nabad noogu soo dhameeyey. sidoo kale alxamdulilah meeshaan inaan maanta aan salaadii ciid ku wada dukano isugu nimaado ayadana waa arrin ilaahay looga mahad celiyo. guusha uu ku yiraahday nasiiyay noona suurto geliyay inaan meeshaan nimaado maanta salaadii ciid fitriga aan ku wada dukano. magaaladan mar hore yaa igu dambeysay soo maray. magaalo camiran dad aad iyo aad u qurux badan oo fiican ay degan yihiin, nolol iyo xarakaad iyo dhaqdhaqaaq oo ka jiray ahayd. maanta runtii markaan diyaaradda soo saarnaan soo degaynay kor magaalada fiiriyay aad u xumaaday sida magaalada ay u baaba'day, sida dadkeedii u guuray oo geedaheedii ay guryaheedii ay geedaha uga soo dhex baxeen. waxaas oo dhan dadku waa dadkii, dalku waa dalkoodii, degaankoodii waaye. waxa dadkii magaaladan deganaay ay uga guureen uga haajireen waxay aaday ammaan la'aan iyo ku takrifal iyo ku joorfal ay nimankaa khawaarijta ah ay halkaan ka sameeyeen oo ayagoon waxba dhowraynin ay dadkii sidaa daraaddeed magaalada uga tageen. maanta alxamdulilah ilaahay mahadi in magaalada ay madax bannaan tahay. wax walba waxay ka dambeeyaan ammaan. qofku hadduu ammaan helo oo cawada gurigiisa asoo baahan xataa u dhex sexdo laakiin aanay cabsi ku jirin ama idinta lagaaga soo dhaca ama lagu yimaada ama madfac soo wiifay oo kugu soo dhaca, waxaasoo dhan haddaanay ku jirin xataa baahidiisu waaye. laakiin marka uu cabsanayo wax kasta oo fiican oo mac uu haysto uu cuno, haddii goormaa lagu soo geli doonaa, goormaa lagu qabsan doonaa, goormaa madfac kugu soo dhici doonaa, goorma hadduu ku jiro noloshu waa dhib badnaanaysaa, macno iyo dhadhanna ma yeelanayso. marka dambe wixii soo haysta inta gacnaha ku qaatay inuu cararo uu meesha ka tago ayuu ku khasbanaanayaa, asigoo aan rabin oo gurigiisa gadaal usoo fiirinayo ayuu qofka meeshii ka tagaa.